حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. waxaa laga wariyey abi hurayra oo magaciisu uu ahaa cabdiraxmaan ibnu sakhr alla raalliha ka noqdee inuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam alle ma eego oo ma tixgeliyo jismigiinna waa jidhka iyo qaabka aad u eg tihiin amaba aad u muuqataan ee waxa uu tixgeliyaa ama eega quluubtiinna iyo waxqabadkiinna. muslim ayaa wariyey. xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa kow fiirin la'aanta alle ee xadiidku sheegay macnaheedu waxa ay ku tusaysaa qiimo la'aanteeda ee alle khalqigiisa waa wada arkaa. labo alle subxaanahu wa tacaala marka uu addoommadiisa abaal marinayo oo la tacaamulayo ma eego oo ma tixgeliyo jidhkooda noociisa iyo qaabka jidhkooda u dhisan yahay midna ma jir yar yahay ma jir weyn yahay jidhkiisu ma dhisan yahay ma dhiman yahay mise waa dhammaystiran yahay iyo wixii la mida. sidoo kalena ma eego laandheerinimada ama laangaabnimada nasabkiisa ileen dadkoo dhammi hal meel uunbay ka soo wada jeedaane. saddex alle iyo addoommadiisa wax xidhiir ah oo ka dhaxeeya oo aan ka ahayn sida addoonku alle uga dhowrsoon yahay taqwo ahaan ma jirto oo qofkooda ugu dhowrsaanta badan ayaa ugu allo dhowaansho badan. afar meesha mudan in la tixgeliyo ee shaqada u asalka ahi waa qalbiga. muuqaalka kore maalka iyo wixii la mid ihi qiimo ma leh haddii aan loo adeegsan addeecidda alle. shan qofka waxaa anfacaya oo keliya markii qalbigiisu ku toosnaado jeclaanta alle ka dhowrsanaantiisa iyo rajayntiisa uuna u baraxtiro isaga waxa uu samaynayo isagoo weliba ka dhigaya waxa uu samaynayo wax sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama waafaqsan. lix qaybta dambe ee xadiidku waxay ina tusaysaa xidhiirka fog ee ka dhaxeeya qalbiga iyo camalka. waa waxa la qabto qalbiga wanaagsanaantiisa ayaa camalku ku wanaagsanaadaa sida nusuus kaleba ay ina tustay. toddoba waxaa kaloo faa'iidooyinka xadiidka ka mid ah in aan muuqaal la dhaldhalaaliyey iyo hadal la qurqurxiyey midna wax tarayn haddii qalbigu xun yahay. sideed xadiidku wuxuu boorinayaa in camalka fiican la badsado lana wanaajiyo oo laga nadiifiyo qashinka cid la wadaajinta istuska iyo iska samaysashada waxaan sharcigu camal fiican u aqoon. sagaal iyana xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa in loo degdego ku dhisidda guriga aakhiro ee mustaqbalka iimaan miro dhala iyo waxqabad wanaagsan iyada oo la yaraysanayo adduunyada iyo uhanqaltaagga dhaldhalaalkeeda aan dhabta ahayn ee suulaya. toban waxaa laga fahmayaa in aan la goyn karin in qof lagu xukumo waxa lagu arkay ee ama fiicnaan ah ama xumaan ah ee uu samaynayo qofkaasi inuu isaguna xukunkaas qaadanayo. waxaa laga yaabaa in qofka camalka fiican muujisanaya uu allah subxaanahu wa tacaala ku og yahay qalbigiisa xumi amaba mid xumaan muujisanaya uu allah subxaanahu wa tacaala qalbigiisa ku og yahay wanaag uu sababtiisa ugu dambi dhaafayo. camalka muuqda waa calaamad meeshii la rabo loo akhrisan karo ee ma aha daliil wax go'an laga qaadan karo.
11 haddii qof lagu arko wax xun oo uu samaynayo laguma xaqiri karo qofka ee waxaa la xaqirayaa oo la liidayaa xaaladaas xun ee uu markaa qofku ku jiro maya qofka laftiisa qof ahaan 12 xadiidku wuxuu tusayaa in iimaanka qofka iyo camalkiisa uu xiriir ka dhaxeeyo ayna khaldan tahay sida kuwa murji'ada ahi ay qabaan marka camalku wuxuu ka mid yahay iimaanka waana kala darajooyin fiican yahay oo weliba waa waxa alle subxaanahu wa tacaala ka fiiriyo qofka oo uu ka abaalmariyo 13 camalka waxaa iska leh qofka sameeyey sidaas ayuuna nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama u yiri acmaashina acmaalakum tani waxay burinaysaa qolyaha dhunsan ee aljabriyah iyo aljahmiyah iyo andacoodyadooda ileen qof aan awood iyo doonis ficilkaas lahayni ma qaban karo ficilkaasi 14 maadaama ay markaaad fiirin maqasho kugu soo degdegayso quruxda waxa la fiiriyeeyo waxaad ogaataa in quruxdu ay u qaybsanto labo mid dadka u muuqata iyo mid dadka ka qarsoon midda dadka ka qarsooni waa sida cilmiga caqliga dhowrsanaanta deeqsinimada geesinimada iyo wixii la mida dadku waxay fiiriyaan midda u muuqata ee daahirka ah laakiin alle subxaanahu wa tacaala isagu waxa uu fiiriyaa midda dadka ka qarsoon 15 al-Ghazali rahimahullahu rahmatan waasica ayaa waxa uu yiri waxaan la yaabay qofka had iyo jeer ka taxadaraya qaabka wajigiisu dadka ugu muuqdo oo la daba taagan dhiqid nadiifin iyo qurxin si aan dadku wax ceeb ah ugu arag ee aan damba ka lahayn qalbigiisa oo ah meesha uu rabbigiis subxaanahu wa tacaala ka eegayo 16 quruxda qarsoon ayaa ah midda qurxisa tan muuqata xitaa haddii aysan tan muuqataa markii hore qurxoonayn waxayna qofkeeda u yeeshaa haybad iyo macaan u dhiganta quruxda u qarsoon imaam ibnulqayim aljawsiyah ayaa yidhi haweenka middood ayaa badin jirtay salaatuleylka la tukado markii dadku hurdaan markaasaa arrintaas iyadii la weydiiyey waxay ku jawaabtay wejiga ayay qurxisaa marka waxaan jeclahay in wejigaygu qurxoonaado 17 foolxumada qarsoon ayaa iyana qarisa oo fool xumaysa quruxda muuqata ee daahirka ah 18 macnuhu ma aha in aan jirka iyo muuqaalka qofka la qurxin ama la nadiifin oo waxaaba la weydiiyey nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama in qofka jecel in kabtiisa iyo dharkiisu qurxan yihiin ay kibir tahay wuxuuna ku jawaabay ma aha kibir maxaa yeelay alle waa wanaag iyo qurux badne wuxuuna jecel yahay quruxda ama wanaaga wuxuuna dadka ugu yeeri jiray waa nabiga ee sallallahu alayhi wa sallama in sida alle u qurxiyay korkooda ay u qurxiyaan dhaqankooda sidii uu jaabir ibn cabdillaahi baa ku yiri dadkii xikmadda lahaa qaar ayaa dhihi jiray qofka waxaa u habboon inuu subax kasta muraayadda isku eego oo hadduu qurux isku arko ama isu arko uusan ku boorayn quruxdaas waxun hadduu foolxumo isku arko ama isu arko uusan laba foolxumo isku darsan muuqaal foolxun iyo ficil foolxun 19 waxaa xusid mudan in alle subxaanahu wa tacaala uusan soo dirsan rasuul aan weji iyo muuqaal qurxoonayn codkiisa iyo nasabkiisuna fiicnayn البراء ابن عازب رضي الله عنه أيا شيغي إن وجه نبي صلى الله عليه وآله وسلم وإكا ضيحا نبينا صلى الله عليه وسلم وحو شيغي إن نبي يوسف أو أركي ليلة الإسراء إساقو قروح دا بركيد لسيي وسيدي النبي كسفيي alle ha inaga wada dhigo kuwa qalbigoodu saafi u noqdo allihii abuurtay oo ku xiran camalkooda muuqdaana uu waafaqo kooda qarsoon waa inoo xadiidka berri insha allahu inta aynu ka gaaraynana waxaan idinka tegaynaa ilaalinta alle iyo badbaadadiisa وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله على
محمد